بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن صاحبيال كسو دوادا وركا رمال ميديا وزيرة كترسان حكومة فدرالك Soomaaliya oo ka qayb galay shirki wada tashiga magaalada Garowe oo galabta warbaahinta kula hadlay caasimada Garowe ayaa si rasmi ah u cadeeyay mowqifkooda ku aadan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo warbaahinta u akhriyay qoraal ay soo saareen ayaa sheegay in ay yihiin qodobo ka mid ah warmurtiyeedka shirka Garowe oo eedamo culus loogu jeediyay madaxda dawladda federaalka isla markaasina ay ka xun yihiin erayo ilhaano ku ahaa dawlad goboleedyada kale oo ku qorna warmurtiyeedkaasi wasiirka ayaa sheegay in eedamaha culus ee warmurtiyeedka loogu soo jeediyay dawladda dhexe aysan ku jirin qodobadii shirka looga hadlay sidoo kalena warmurtiyeedka yahaano loogu geystay dawlad goboleedyada kale dhanka kale wasiirka ayaa soo dhaweeyay booqashada madaxweyne Deni uu ku tagi doono magaalada Muqdisho si uu la kulmo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kale oo uu soo dhaweeyay shirka madaxweyne Deni uu ku casuumay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka si looga wada tashado xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka wasiir Cawad ayaa sidoo kale bogaadiyay qodobada ka soo baxay shirkii wada tashiga Garowe marka laga reebo kuwa lagu dhaliilayo dawladda federaalka ee Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim war saxaafadeed wafdiga dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo qayb galay shirka wada tashiga Puntland ee socday 15 ilaa 17 March annagoo ah wafdiga dawladda federaalka uga soo qayb galay shirka wada tashiga Puntland waxaanu war saxaafadeedkan u qabanay inaan ku cadeyno arrimahan soo socda waxaan soo dhaweynaynaa go'aanka madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni uu ku tagayo Muqdisho si uu la kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre si loo xalliyo wixii khilaaf ah oo jira qodobka labaad waxaan madaxweynaha Puntland ku bogaadinaynaa qabashada shirka wada tashiga qodobka saddexaad waxaan ammaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland sida xilkasnimada waxgaradnimada leh ee ay shirka uga qayb qaateen qodobka afraad waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii shirka ee ku saabsanaa midnimada amniga iyo horumarka Puntland qodobka shanaad waxaan diidanahay go'aamada lagu sheegay warmurtiyeedka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan dawladda federaalka oo aan ka tarjumin hadal soo jeedintii iyo doodihii shirka waxaan ka xunnahay oo rabnaa halkaan inaan ka cadeyno erayadii xanafta lahaa ee warmurtiyeedka ku soo baxay ee loo geystay dawlad goboleedyada kale taasoo aan qayb ka ahayn ajandihii shirka kuna jirin hadal soo jeedintii wufuudda kuna jirin doodihii shirka ugu dambeyntii wafdigu wuxuu u rajaynayaa kulanka Muqdisho ee madaxda federaalka iyo madaxweynaha Puntland inuu ku dhamaado isfahan wada shaqayn iyo guul si loo gaaro danta ummadda Soomaaliyeed
waa mahadsantihiin. magaalada Jigjiga waxaa maanta ka soo gudbay gaadiid dagaal oo tiro badan iyadoo la sheegay in ay u soo socdaan dhanka Soomaaliya. gaadiidkan waxaa dusha kaga qornaa AU ama African Union, laakiin taarikada nambarkeeda ayaa ahaa taarikooyinka lagu dhajiyo gaadiidka dowladda Itoobiya. dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya midna kama hadal ujeedka gaadiidkan dagaal ee la sheegay in ay u socdaan dhanka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay luqad adag kula hadashay dadka reer Somaliland ee ku nool qurbaha, gaar ahaan kuwa aan la dhacsaneyn abmaamuleedkeeda ee inta badan mucaaridka ku ah xukuumadda Muuse Biixi. afhayeenka madaxtooyada Somaliland ayaa sheegay in aysan Somaliland u dulqaadan doonin in dibadda laga soo mucaarido. sidoo kale waxa uu afhayeenku ka dhawaajiyay in xubnahaasi wax mucaaradaya ee ku sugan qurbaha in aan loo ogolaan doonin in ay gudaha u soo galaan deegaanada Somaliland iyada oo laga celin doono mudaarada Somaliland. waa sida uu sheegay afhayeenku. tilaabadan ayaa u muuqata mid xukuumadda Muuse Biixi ay cadaadis weyn ay ku saarayso dadka qurba joogta ah ee inta badan dhaliila siyaasadda xukuumadda, midaasi oo ay u aragto khatar weyn oo dibadda uga imaanaysa. xukuumadda Somaliland ee Muuse Biixi ayaa inta badan waxaa la aaminsan yahay in ay mucaaridka aan la dhacsaneyn siyaasadeeda ay u geysato tacadiyo ka dhan ah, midaasi oo baalmarsan hanaanka dimuqraadiyadda ay ku doodo in ay ku dhisan tahay. kadib markii dowladda federaalka ay ka mamnuucday duulimaadyada dalka, dowladda Kenya ayaa adeegsatay hab kale oo ay qaadka ku geynayso magaalada Kismaayo, sida ay sheegeen xildhibaano magaaladaasi ku sugan. Kenya ayaa la sheegay in ay shalay deegaanada Jubbaland ay ku soo daabushay doonyo sida qaadka, kuwaasi oo ku soo xirtay dekedda magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. arrintaasi oo lagu tilmaamay mid xadgudub ku ah madax bannaanida Soomaaliya. xildhibaan Siciid oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa warbaahinta u sheegay in shalay suuqyada Kismaayo lagu iibinayay qaadka oo dowladda Soomaaliya ay joojisay diyaaradihii dalka keeni jiray sababo la xiriira cabsi xoogan oo laga qabo cudurkaasi coronavirus. xildhibaanka ayaa sheegay in doonyaha ay horey qaadka u keeni jireen Kismaayo, balse hadda qaad ka badan kii hore ay ku soo daabulaan magaaladaasi. dowladda Soomaaliya kama soo bixin amar ay ku mamnuucday doomaha ama si gaar ah ay uga beegsatay qaadka, sidaasi darteedna ma cadda in Kenya ay sharci jabisay iyo in kale. guud ahaan iyo gebi ahaanba warkii Ramal Media akhyaarta wada naga dhageysanaysa waa naga intaas. warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdi Hanuun Cali. intaan warkan warka xiga aynu ku kulmi doono sidaas iyo amaana Allah.